السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان صحابي الأد بعدين سلامي ما أنتوا حاربة business عادية أما فكرة جنا عصرنتي أد وقرح بدن إن إذا نشر قري أو ولا وحوي channel كان كحرر كفاءة ليستان فرصة رنتي وحوي لعق بدن كحميس وأنا business عادي رنتي أد وقرح بدن مركب حاربة إن لا دور قطب أن نقل قطع هذا business كارت مركب وحاربة إن information كاسي وحوي وحوي قاب وشقينية بررتي مركب له بهاي ما دام مشين رنتي هيت بريس الدار meesha ka heli kadib qaabka u soo dhawsan lahayd iyo wadooyinka u soo maray ee lacagaha markaas midqaan ugu bixi kara inaan sharkalayo qodobka saddexaad saaxiibayaal waxaan rabaa inaan ku sheego marketing qaabka u sameyn lahayd oo businesska markii aad bilowsid targetka audience meelaha aad ka dhiganayso iyo surface-da markaas insha Allah aad bixin ka dhig tan u dambeysana waxaan rabaa inaan businesska qaabka u guuleysan karo iyo inta u baahan tahay surface ama mataqaana caawinaad insha Allah in aydan insha Allah kula sharkalayo magacayga waxaa la saaxiib Geelo Bashiir almost every waxaan shanka ku soo gudbiyaa siyaalaha kala duwan business online ka looga shaqeeyo ay sidoo kale waxay offline business ka ganacsiga physical ka runtii ku soo gudbiyaa waxaan ka codsanayaa kaliya inaan video ka laakiin noo saartay sidoo kale hadii aad jeceshahay siyaalaha online ka looga shaqeeyo inaad channel ka aad ku soo biirtay subscribe saartay insha Allah almost every day halka update aad ka shaqeyn balkan aad furtay saaxiibayaal fikradda maanta aan idin shargalanayo waxaa la dhahaa print or demand ama waxaa la dhahaa t-shirt prints waa bis runtii aad u fudud marka waxaa la inaan ku qodobeeyo businesska wuxuu yahay businesska saaxiibayaal wuxuu yahay horta waxa u baahan tahay machine oo heat price machine gadaal baa rabaa meesha ka helis inaan ku sharxo laakiin concept guud ee kaas iyo fanaanadaha baad daabacaysa fanaanadaha waxaad ku qoraysaa magacyo waxa ku soo qoraysaa sawirro waxa ku qoraysaa madqal loogooyin waa bis runtii dadkan waliba qurbaha jooga ee aad u isticmaalaan lacag badan laga sameeyo business aad dukaan weyn aad furanaysa ma ahan waa business runtii $500 aad ku bilaabi kadib lacagahan qaabka aan u budget gareeyeen insha Allah waa kula sharkareynaya marka fikradda guud waa intaas waa ina fanaanada aad soo saartay ruuxaanta wadankii dadka joogaan raba ina xoog ka saar maadaama ay fursadan ka faa'iideysan karaan wadankeena shaqo la'aan xun ee ka jirto marka aydiyadan waa aydiya runtii shaqeynayso qofkii raba inuu ka faa'iideysto insha Allah aan raba inaan kala shaqeeyo ama aan hadda video kugu soo gudbiyo siyaalaha aad u heli kartid mataqaana productigan iyo service-ka machine-ka horta u baahan tahay waxa la heat press baa la heat press saxba waa machine loo diyaariyay inuu video wajeedama inuu fanaanadaha daabaco fanaanadahaas fanaanadii baad gelinaysaa looga hadda u baahan tahay sawir hadda u baahan tahay qoraal hadda u baahan tahay anything uu kugu qorayo machine-kaas uu kugu mataqaana print gareynaya machine-ka marka hadii aan ku bilaabo qaabka u soo helay saxba machine-ka waxa ka helisa Alibaba wuxuu ku yaalaa ilaa $200 kan u yar oo ugu fiican macquulka waad ku heli kartaa oo loo baahan yahay professionalka kaasoo kale 500 mid laga runtii ugu jira laakiin ka 200 hadii aad ku bilowday waa good budget way machine-kan $200 Alibaba hadii kala baxday by the way hadii aad qaabka Alibaba looga adeegto video kor ka daawo step by step qaabka Alibaba looga adeegto supplier qaabka loola mataqaan negotiation loola sameeyo qaabka loola xiriiro supplier-ka saxda qaabka project looga supplier way kala duwan qaana gold ba haystaan qaana wax haystaan verified mataqaan supplier qaana waa gold supplier qaabka marka loo kala garto iyo waxa lagu kala doorto supplier-ada iyo xisaabaad yaryar laga yaabaa in dadka qaar ay ku adkaato qaabka ay u xisaabiyaan markii wax iibinayaan maadaama Alibaba uu qaab jumlada wax u iibi laakiin machine-kan oo kale kaligiis waa helaysa maadaama uu yahay machine waxa culus oo qaali ah oo $200 qof kaligiis runtii waa ku heli kartaa marka video-ga hadii Alibaba aad aqoon qaabka waxa looga dalbado marka machine-ka hadii $200 ku soo hesho $100 waxa kaaga baxaysa saaxiibayaal delivery-ga tusaalahan qadar doon baa lagu saaray doontu Alibaba waxa qaata chain 45 baa qaata by the way aniga hadda kor baa Alibaba wax ka iibsaday saliid bank keenay jira tinta la marsado intaan online business ka bilaa qaab offline baa runtii u shaqeynta marka experience badan baa u leeyahay marka sea freight iyo waxa air freight bidaan sea freight marka doonta lagu saaray markabka air freight marka diyaaradda lagu saaray waa qaali laga yaabaa machine-ka oo 200 kala baxa in 250 lagu keeno oo double lacagtiisa almost same way waa qaali laakiin doonta waxay ku fiican tahay $100 baa laga yaabaa in uu soo qaado laakiin it takes time waxa weeye period bay u baahan tahay inaad sugto soo kale 45 bir bay qaata ugu badnaan bilna way qaata awala marka dii ay degdeg ugu jirin on budget aad tahay aragto lacag yar maaha inaad business-ka aad ku bilowdi waxaan qabaa inaad markabka soo saartay qoliyaha sablaayka laftigooda markabka ku soo saaray wax dhiba ma laha haddii marka luqadaada ay kugu adag tahay aad qaabka looga dalbado Alibaba arrimaha soo iyo masterka ay haysan lacagta ku bixin oo kale waxa sameyn ka lacag bixinta videogaas baan saddex qayb lacag loo bixiyaa marna bank lagu bixiyaa marna waxa weeye masterka lagu bixiyaa marna PayPal videogaas ma aga soo hadlaa kor aan kugu soo insha Allah soo fahan insha Allah
arrimahaas oo dhan marka waa ka maarantay haddii aad qof online ku adag aad tahay waxa sameyn ka dhaa mashiinka horta waa dalbanaysaa lacagtan waa iska bixinaysaa meesha adiga marka ay ku soo dhiibi lahaayeen Soomaali waxa jirta agencies kule logistic agencies kule China wadanka goboladan wadanka joogo ayaga alaabta loo geeniyay ayaga ku saari kiiladii waxay qaadaan $10 marka ay ugu dambeysay 2 sano kor bay ugu dambeysay hadda laakiin waxa ugu runtii kama inay bedelaan in kale laakiin kiilada $10 bay ku soo marka aad ku fiican Soomaali weeye gobolka aad joogtay ama magaalada aad marka alaabtada lagu isfahankiin xoogaa uu yaraanaya maadaama aad dadka isku luqad aadeen oo xoogaa istarayska dadka laga yaabo marka online ka dalbanaya in kana weed ku noqoto xoogaa strange aad dareento walwal badan lacagteedii qof marka online ka xoogaa laga yaabo in xoogaa walwal badan marka qofkii rabana qaabkaas uu sameyn karaa oo magaalada joogta ba waxa ka raadinaysa Soomaali China joogta oo agency kule logistic dabcan waa laga inaan baabaartid ama asxaabtada China joogta waxay ama farq asxaabta disi wala helaya qof markaas wadanka jooga ama hadaad nin magaalada faasata magaalooyinka meelaha aan logisticada tag waa ka helaysaa agency dabcan way isla shaqeeyeen project lagu keeno okay waxa ka soo qaadaa marka inaan project 200 ah kala soo baxday $100 alaabta lagu keeno magaalada joogta ay kugu timaado $300 waxa kale oo baahan tahay $100 waxa u baahan tahay in aad ku soo gudbi fanaanadaha yararka loo yaqaan mataqaana t-shirt ama fanaanadaha yararka ama garamadaha dadka qaar u yaqaanaan ayagoo long sleeve ayagoo short sleeve runtii waa samaysan kartaa hadda ka hor business kan in la yara oo digital fanaanada hoodie ah wuxuu soo jeedaa hooy runtii brand very successful noqday runtii lacag badan uu ka sameeyay waa bilinta oo dhiman runtii business aad fiican ba aad qurux badan uu ka faa'iido marka dhalinyaro badan baa jirta fursad ka faa'iideysan marka adiga fanaanada marka soo gadid target kaaga ku sheegaya marka target kaaga waxa weeye dhalinyarada naadiyada sportska kala wadanka jooga Serie A Serie B Serie C whatever any names any football any kubad kasta ciyaaraan football basketball kubadaha ciyaaraan fanaanadii adiga oo buufinayo adiga mashiinka si qurux badan oo ku sameeyay mashiinka kuwi Soomaaliya kalama waa professional qaab qurux badan sawirkii loogadii waxa koobka caadiga koobka shahar uga cabta uu ku sameeynaya target ka labaad waxa weeye hoteelada iyo mataqaana maqaayadaha hadda si xooga VIP noqdeen hotel kasta wuxuu leeyahay mataqaana dhar u gooniya ama dress u gooni ah logooyinka iyo shirkadda magaceeda qurux badan ee sangaraysan baa ugu soo taasna xooga waa saalisa sidoo kale xisbiyada dalkii hadda ka jiro siyaasadda labtigeeda campaignada waa looga faa'iideystaa wadanka ogtiima mustaqbalada xisbiya baa runtii ka biloobay siyaasiyiin baa xisbiya samaystay markaas oo kalena tababaha kale mataqaana ama ciidamada yarta oo qoorta la surta ama scarf waxa dhahan kale هذا دابع يو صورة يقول إن فنانين حزب جاز بس يقول على مدي بقصو صار سيالها سنة وقف إنسان مركب بيزنس مرة ربع وتعاون وياه واحد استعين إنه مع مركز تبلاش مركز أصلا عرضي برضو وقف إنسان الشركة دي هوتيلات دي مقاعدة بيزنس تحت هذا اسمه بيزنس تحت واحد بالعروض حتى إن براند جوني سميستر جوني سميستر لوجو جوني سميستر واحد حصل واحد رسح إنه لو ضابع سي بروفيشنال رنت لو ضابع marka saxaabyaal runaan business kan bishi 3 kun $4 qofka uu ka sameyn karaa marka uu yarta waaye baahidina way badan tahay investmentiga ku bilaabay business kan waa $500 $100 marka ugu dambeeyo waa aniga 200 mashiinka 100 delivery lagu soo qaado 100 fanaanadaha marka maalgashi aan la timaada oo fanaanada inta adiga aan laga soo dalban suuq waa inaad qaar soo badhigtid si macnaha dadka u fahmaan sanbalada muhiim ah oo arkaan qaabka sanbalada u sameynaysa marka fanaanadaasi dhowr magac ku qor maamahayo xigmado sawiro sanbalaaq yaalka xaafada ka iibsanay kuwa marka boqolka u dambeeya marka 500 soo xiriyo wuxuu noqonaa dabcan dee marka business bilaabis inaad meel kaliisto oo baahan tahay boordir aad mataqaan aad ku dhigsto kale national share aad ku sameeyso marka businesska أنا budget ويا $500 runtii waa lagu bilaabi karaa waana fikrad runtii cajiye mashiinka magaciisa waxa la heat price baa la dhahaa Alibaba laga dalbaa saan idin sheegayba ama si online ah u dalban karaa ama dhalinyarada Soomaaliyeed ay soo dhiibaan waxa Alibaba iyo China ku sheegay waa meesha Amazon ka $600 ku yaala laakiin Alibaba uu jaban yahay mashiinkaas runtii maadaama dadka Amazon ka adeegto waxay ka soo dhiibaan Alibaba بكسو أديكتها ما حتى قف قربها تشوفوا ودرسن كرتا على الباب وكعدل بكلا هدي أونلاين دبعت يعني مركا وفكر في عن قيبت قدام بيان ربي إن البيزنس عادي كوزو جبجي وحوي وأنا ضدك إسبرت عادي وأنا فيسبوك بيسميسد تيك توك وأنا سميسد انستغرام وأنا سميسد سدح حاس وفول ويب سايت قلال بكسمين طنطا لكن سدح حاس كبروا
business ka maalin ku soo bandhig service ka aqoonta dhalinyarada la shirgalay dadka u soo bandhig xaysi marketing mataqaana skills badan isticmaal taasoo ka caawin dad badan inay ku bartaan ku soo faxta laga yaabaa magaalada gobolada ku xiriirsan ama ilaa dalka dhanba laga soo dalbado maadaama wixii service sax aad bixinaysid marka waa fursad runtii aad u fiican waddankoona runtii looga baahan yahay xataa xafladaha dhalinyarada ay ku qalin jebiyaan oo kale waa kaga faa'iideysan kartaa marka waa business runtii waxa ay idea fiican waliba qurbaha aad looga weydiin marka business aad raba maanta in insha Allah inaad ilaashado haddii aad jeceshiin ideooyinka business physicalka ama businessan oo kale maalgashi u baahan laakiin waddanka ka shaqeeyo insha Allah community-ga igula shargalaya waa idin soo bandhiga insha Allah ideooyin badan oo lacag yar lagu bilaabi karo runtii qof dhalinyarana uu ka faa'iideysan karo dhammaan saaxiibayaal baan salaamaya waa mahadsantiin